maanta oo talaada 19 bisha Oktoobar waxaa guddiga doorashooyinka goboleedka Jubbaland ee federaalka farxad u ah inuu shaaciyo gooreynta ama mudaynta qabashada afartii aqal ee ka dhinayd aqalka sare ee ka soo bixi lahayd stateka Jubbaland oo xalay oo madaxweynaha Jubbaland soo saaray nuguna soo wareejiyay guddi ahaan hadda laga bilaabo sida ay howlaha u socon doonaan waa sidan koow guddigu wuxuu ilaa galabta ilaa caawa ka shaqayn doonaa diyaarinta documentationkii loo baahnaa ee doorashadaas lagu qaban lahaa barrito musharaxiinta kuraasta u tartamaysa ee liiska ku qoran waxaan ka rabnaa oon ka sugaynaa inay imaadaan xafiiska 2 saac iyo bar subaxnimo si ay diiwaangelintooda u buuxiyaan iyo wixii howlaha xafiiska kaga xirnaata bari dambe haddii Ilaahay idmo guddigu wuxuu diyaariyay inay dhacdo codbixinta bari dambe markaan leeyahay waa Khamiista haddii Ilaahay idmo 21 bisha Oktoobar guddigu wuxuu diyaariyay inay codbixintii dhacdo 4taas kursi soo dhawaada waadna mahadsantihiin doorashadiinna iyo abaabulkiinna iyo campaignkiina waa idin furan yahay waxaad su'aal u baahataan wada soo xiriiri kartaan anytime xilli kasta xafiiska guddiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guul baa u rajaynaya ummadda Soomaaliyeed